maamulka kooxda Barcelona ayaa doonaya inay shaqada ka cayriyaan tababaraha kooxda Ronald Koeman oo u dhashay dalka Holland ayaa 19 bishii Agoosto ee sanadkii 2020 loo magacaabay tababaraha kooxda Barcelona isagoona qalinka ku duugay heshiis 2 sano ah oo ku eg 30 bisha Juun ee sanadka 2022 labadii toddobaad u dambeeyay ayaa waxaa saarnaa culays waxaana iminka la soo warinayaa in maamulka kooxda Barcelona ay go'aansadeen inay ku bedelaan ciyaaryahankoodii hore ee Xavi Hernandez. Haddaba waa kuma Xavi Hernandez? Wuxuu sanadkii 1980 ku dhashay magaalada Terrassa oo ku taala dalka Spain. Wuxuu kubadda cagta ka bilaabay kooxda Barcelona oo uu sanado badan ku qaatay. Muddadii uu joogay Barcelona wuxuu lafdhabar u ahaa kooxda, wuxuuna ahaa laacib ay taageerayaashiisa ku raaxaystaan xirfadiisa kubadeed. 17 sano uu ciyaarayay kooxda Barcelona wuxuu saftay 767 kulan. Xavi ayaa Barcelona u dhaliyay 85 gool wuxuuna caawiyay 185 gool. 8 jeer ayuu Barcelona u qaaday horyaalka dalka Spain ee La Liga, 4 jeerna wuxuu u qaaday UEFA Champions League. xulka qarankiisa Spain ayuu u saftay 131 kulan wuxuuna xulka qarankiisa u dhaliyay 12 gool isagoona caawiyay 24 gool. hal mar ayuu u qaaday koobka adduunka. 2015 ayuu Xavi ka tagay Barcelona isagoo u safray dalka Qatar wuxuuna ku biiray kooxda Al Sadd oo ka ciyaarta horyaalka dalka Qatar. 24 gool ayuu dhaliyay 98 kulan oo u saftay Al Sadd wuxuuna caawiyay 28 gool. hadda wuxuu tababaro u yahay naadiga Al Sadd.